السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالي وناكسن كسو دوادا ورarkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida waa khamiis 4 bisha Ramadaan sanadku waa 1440 taariikhda hijrada islaamka taariikhda miilaadiguna waa 9 May sanadka 2019 wararkeena waxa ugu waaweyn Mareykanka oo cunaqabateen hor la duldhigay Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ololeynaya arrin looga bartay madaxda Soomaalida wararkii ugu dambeeyay ayaan idinka haynaa shirka Garowe iyo madaxda oo wali Ismaarila madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo markale tusaale xun u soo qaatay Soomaaliya midowga Yurub oo qaadaya tallaabo horseedi karteen ciidamada Kenya ay ka baxaan Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Khayre oo tamashlaynaya Garowe qodobadaas iyo kuwa kale u diyaar garooba barnaamijkan waxa soo saaray Cabdiqani Boos waxaan idin soo jeedinayaa anigu waa Yuusuf Cabdishire markale ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaad kala socotaan baggeena YouTube-ka ee Raad Production haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dheh si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida xukuumadda Mareykanka ee hogaamiye Donald Trump ayaa cadaadis ku haysta dawladda Iran waxayna sheegtay inay cunaqabateyn ku soo rogeen dhammaan birta ay Iran dunida u soo geyso Mareykanka ayaana horey u mamnuucay shidaalka oo dalkiisa soo saaro cunaqabateyntan cusub ayaa qoraysa in shirkadaha iyo wadamadu aysan iibsan karin aluminiyamka iyo maarta ay Iran caalamka u soo geyso qorshaha Mareykanka ayaa ah inuu dhaawac weyn u geysto dhaqaalaha dalka Iran si cadaadis loogu saaro xukuumadda Tehran ama uu kacdoon dalkaasi uga dhasho way xulafada Mareykanku ay ku jiraan Sacuudiga Israa'iil iyo Imaaraatigu horey ugu hanjabeen inay qaadi doonaan tillaabooyin military dhinaca kale dawladda Iran ayaa beesha caalamka siisay muddo 60 maalmood inay la yimaadaan tillaabo lagu badbaadinayo heshiiska barnaamijka nuclear-ka ee ay saxiixeen 2015 heshiiskaasi oo ka baxay dalka Mareykanka oo kamid ahaa wadamadii wax ka saxiixay Iran waxay sheegtay inay dib u bilaabi doonto kobcinta uraniumka laga dhaliyo quwadda nuclear-ka arrintaasi oo aan jabin doonin heshiiskii hore ay u saxiixdeen balse ay tahay digniin ku socota beesha caalamka in Iran aysan u sii adkeysan doonin cunaqabateynta Mareykanka heshiiskii hore loo saxiixay ayaa ahayd in Iran ay joojiso barnaamijka nuclear-ka si looga qaado cunaqabateynta dhaqaale dhinaca kale madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa xilligan u ololeynaya arrin looga bartay madaxda Soomaalida musharaxiin isku diyaarinaya kursiga madaxweynaha kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka hor yimid go'aanada ay dawladdu ku diidan tahay in dadka madowga ah ee u dhashay Mareykanka la siiyo magdhow dhanka midabta koorka iyo adoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Axad ahayd ka digay arrinkan wuxuuna sheegay in muddadii 2 sano ahayd ee xukunka hayay la saaray cadaadis xoog leh sidaas oo ay tahayna horumar weyn uu horseeday dalka qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay ayuu ku sheegay in 2 sano la soo dhaafay ay ugu dhamaatay baaristii doorashada ee Ruushka taasi oo uga dhigan qaybtii koobaad ee xukunkiisa wuxuu tilmaamay waqti laga xaday xilligiisii madaxtinimada Trump ayaa dib u sii faafiyay qoraalkaas wuxuuna loo fasirtay in ololaha muddo kordhinta uu isagu qayb ka yahay arrintan ayaanan ku cusbayn dhagaha dadka Soomaalida maadaama madax kala duwan oo soo martay Soomaaliya ay dalbadeen in waqtiyo loo kordhiyo kadib marka ay dhamaato xilliga sharci ahaan maamulkooda loo qabtay dawladihii ku meel gaarka ahaa ee isdaba yaalay ee maamulka Soomaaliya iyo waliba federaalka ayaa dhowr jeer loo sameeyay muddo kordhin laga soo hormariyay xilliga doorashada dadka qaar ayaa hadalka madaxweyne Trump u arka mid kor uga imaanaya gafna kuwa sharciga u yaala dalka Mareykanka waxaa sidoo kale sheegeen qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Trump in sharciyada dalka iyo dimuqraadiyaddu ay ka baranayaan barta Twitter-ka ee madaxweynaha halkani ma ahan ciyaaraha kubadda cagta ee uu jiro waqti ganaaxa si ay ugu daraan xilli dheeraada ka hor inta aysan ciyaartu dhammaanin ayuu yiri mid ka mid ah dadka Mareykanka shirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa marxalad xasaasi ah maraya Garowe iyadoo markii shanaad uu galay shir aan wali loo kala kicin madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sida wararku sheegayaan shirkii u dambeeyay ee madaxda dhexmara ayaa xalay dhacay wuxuuna ahaa kii ugu waqtiga dheeraa marka la eego kulamadii hore wararku waxay sheegayaan in shirka la isla gaaray ilaa 3 habeenimo xilliga oo ay ku dhaweyd salaadii subax oo la kala tagay iyadoo wali aan loogeyn waxyaabaha la isla gartay balse ay jiraan caqabado laga gudbila yahay ila kala duwan ayaa xaqiijinaya in 2 maalmood ee la soo dhaafay ee shirku ahaa kii ugu xasaasisanaa uguna adkaa waxaana hareeyay arrinta Galmudug iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo marayo xal u helidda khilaafka kaas oo la isku khilaafay madaxweynaha Galmudug ayaa ku adkeysanaya in muddada xilhaynta maamulkiisu ay ka bilaabanayso heshiiskii lagu mideeyay ahlu sunna iyo Galmudug ee Djibouti sidaas darteedna qodobkaas aan lagu koobi karin iyo go'aamadii lagu gaaray Dhuusamareeb sidoo kale madaxda dawladda federaalka ayaa u soo jeediyay madaxweyne Xaaf inuu sameeyo shir dib u heshiisiin isla markaana Dhuusamareeb shir loogu furo baarlamaanka fadhiya cadaado iyo gudoomiye Cali Gacal Casir madaxda dawladda
dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa isfaham hordhaca waxay ka gaareen arrinta sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ay ansixiyeen golaha wasiirada waxaana la isku afgartay in sharcigaasi laga wada tashado waxaa kaloo weli la isku hayaa sharciga batroolka oo horyaalla baarlamaanka soomaaliya waxaana qodobkaasi maamul goboleedyadu qudhooda yihiin kuwa ku kala qaybsan shirka ka socda Garowe ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii uu bilowday shirkii u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaana shirkaasi uu kaga duwan yahay shirarkii hore madaxda aanay cidna ku helin wada hadallada iyo inay yihiin kuwa albaabadu xiran yihiin taasi oo keentay in wax badan laga ogaan waayo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa marar badan aflagaadeeyay Soomaaliya isagoona sii wata tusaalooyinkan wanaagsanayn ee uu soo qaato Soomaaliya madaxweynaha Uganda ayaa si adag ula hadlay fanaanka Bobby Wine ee siyaasiga isku bedelay wuxuuna sheegay in looga baahan yahay inuu Soomaaliya aado si uusan u carqaladeyn nabadda dalka Uganda Museveni oo 75 sano jira ayaa caadaystay inuu Soomaaliya u soo qaato tusaalayaasha ugu xunxun wuxuuna ku booriyay kuwa isaga mucaaradka ku ah inay aadaan Soomaaliya oo ay deganaansho la'aan ka jirto hadalka Museveni ayaa u muuqda mid uu ku garaacayo fanaanka Bobby Wine oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Uganda mucaaradna ku ah madaxweyne Museveni iyo maamulkiisa xildhibaankaasi mucaaradka ee 37 sano jirka ayaa si cad u dhaliilay madaxweyne Museveni taasi oo keentay in dhowr jeer la xiro iyadoo oo boolisku ay ka horjoogsadeen 130 ruwaayadood oo uu ka dhigi lahaa dalkaasi tan iyo sanadkii 2017 hadalka qadafka ah ee Yoweri Museveni had iyo jeer wixii xun tusaale ahaan uu soo qaato dadka Soomaalida ayaa u muuqda fal aan garowshe lahayn oo sharaf dhac ku ah sharafta dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan dadka iyo dalka Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha dagaalka xambaaraha u dirtay ciidankeeda ku sugan bariga dhexe si ay ugu awood sheegtaan Iiraan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka kuwa helikobtarada gantaalada wax burburiya iyo tiro ka badan 6,000 oo ciidanka badda ah oo saaran markabkaasi Mareykanka ka soo dhaqaaqay Abriil 2019 la taliyaha amniga Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay ka jawaabi doonaan tallaabo kasta oo daandaansi oo ka yimaada dhinaca Iiraan dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ku eedeeyay la taliyaasha Trump inay wadaan daandaansi dagaal oo ay ka hurinayaan bariga dhexe Mareykanku wuxuu joojiyay shidaalkii uu ka soo dhoofsan jiray Iiraan sanadkii 2018 iyadoo madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskii nuclear-ka ee Tehran lala galay sanadkii 2015 ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayri ayaa xalay booqday qaar ka mid ah goobaha ay bulshadu ku kulantay ee Garowe si uu u xog wareysto shacabka magaalada una ogaado isagoo sidoo kale tagay qaar ka mid ah hoteelada iyo xarumaha ganacsi ee Garowe ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la kulmay kana dhageystay talooyin iyo fikrado muhiim ah oo bogaadiyay wada shaqaynta ka dhaxaysa shacabka iyo madaxda federaalka wuxuu sidoo kale ka qayb galay afur sharafeed maamulka gobolka Nugaal u sameeyay wafdiga ra'iisul wasaaraha ee ku sugnaa Garowe booqashooyinka iyo tamashlaha ra'iisul wasaaraha uu ku sameeyo caasimadda Garowe ayaa imaanaya iyadoo madaxda federaalka iyo maamul goboleedyadu weli ku heshiin la yihiin qodobada masiiriga ah ee dalka iyo xalinta khilaafaadada dhexdooda shirka madaxda wadatashiga Garowe ayaa galay maalintii shanaad iyadoo aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay halka uu marayo shirka iyo waxyaabaha heshiiska laga gaaray iyo kuwa aan weli laga heshiin wadaana wararka ugu dambeeya caalamka iyo Soomaalida maanta waa naga intaa waxaad kala socoteen barteena YouTube-ka ee Raad Production waxa soo saaray Cabdiqani Boos aniguna waxaan ahay Yuusuf Cabdi Shire si aad ula socotid mar kasta wararkeena iyo muuqaaladii ugu dambeeyay ku soo biir oo subscribe saar